madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in Somaliland ay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya haddii ay isku dayaan gooni-goosadna uu awood buuxda u adeegsan doono Mareykankana ka dalbaday hub culus iyo sidoo kale diyaarado si Somaliland uu hoos keeno dowladda dhexe. Mareykanka ma ka aqbalay arrintaasi goorma ayaase la siin doonaa hubka culus iyo diyaaradaha uu ka dalbaday Mareykanka ayaad xogtaan ku daawan doontaan daawade. Marka hore waxaa ka codsanayaa inaad kanaalkeena subscribe taabato oo like dhahdo una sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa si cad u sheegay in Somaliland aysan marnaba u ogoleyn gooni-goosadka ay sheegaan ayna tahay wax aysan mar waliba raali ka ahayn. Waxa uu sheegay haddii ay isku dayaan in uu tilaabo qaadi doono qorshaheedana uu dejiyay. Haddaba qorshahaasi oo aan la sii ogaan balse xogo hoose aan helnay ayaa sheegaya in uu doonayo inuu awood ahaan tijaabiyo ama uu awoodiisa ku tijaabiyo Somaliland oo ah maamul awood badan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana aad u sii fogeeyay aragtidii iyo qadiyadii Somaliland ee ahaa gooni-sutaaga. Maamulka Somaliland oo ah mid maamul 31 sano jirsaday tan iyo markii dhidibada loo taagay sanadii 1991 ayaana waxay u shaqeynayeen 31daasi sano si madax bannaan. arrintan ka soo yeertay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha dalka ayaana noqon karta dagaal kale oo ka dhex qarxa Damul Jadiid iyo Somaliland oo awal taageersanaa Damul Jadiid iyo Xasan Sheekh Maxamuud walow ay aragti ahaan aad uga soo horjeedeen madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii uu talada hayay. arrintan ayaa timid xilli dowladda Mareykanka iyo Soomaaliya ay ka arrinsanayeen shir ku aadanaa shidaalka Soomaaliya, taasi uu Xasan Sheekh Maxamuud u arko in Somaliland laga qayb dhigo shidaalka meelaha laga qodi doono iyo sidoo kaleeto qaybsiga shidaalka si guud dalka oo dhan oo ay ku jirto Somaliland. waxaan idinla wadaagi doonaa codka uu ku leeyahay Somaliland marnaba ma aqoonsanin in ay tahay dowlad madax bannaan ama maamul gooni-sutaag ah, waxaana ay yihiin maamul goboleed ka mid ah dowladda Soomaaliya. sidoo kaleeto waxa uu leeyahay waxa ay Somaliland mar waliba ahaan doontaa maamul ka hoos shaqeeya dowladda dhexe. waa sida uu sheegay in uu doonayo mar waliba in ay Somaliland ahaato. muuqaalkan ayaan ku soo wadaa uu ku faahfaahinayo wax waliba oo aad horay u soo maqasheen, balse waxaa ka codsanayaa daawade ka hor muuqaalka in aad subscribe taabato oo like dhahdo muuqaalkan si uu u gaaro dad badan. waa kanaaye ka bogasho wacan. Somaliland dad Soomaaliyeed waaye. siyaasadda aan kula dhaqmayna waxay ahayd siyaasad aan colaad lahayn, dagaal lahayn, faragelin iyo kala qaybin iyo kala wixii faquuqid aan lahayn oo aan rabnay in lagu leeshiyo. laakiin xilli aad u adag ay hadda ku jiraan oo ayaga la sidooda ayaa doorashadii iyo wixii iyo wadda aan soo marnay beriyihii hadda u dambeeyay ayagana hadda ay marayaan. insha Allah way ka imaan doonaan si nabad ah. diyaaran una inaan wada hadalka meesha ka bilaabno, laakiin marka intiiba waa kala shaqeynay. marka walaalayaal reer Somaliland annaga waxaan naga goonaay inaanan hadda aanan diplomatic masalka dowladda Soomaaliya ay leedahay legitimate-ka inaanan ku barashar garayn, laakiin there are limits. wax kasta oo gooni-sutaaga promote garaynayo waa kasoo horjeednaa. wixii ka soo hara development hadday tahay, humanitarian hadday tahay, trade iyo business iyo investment hadday tahay, all waxa waaye aadan u soo dhaweynaynaa. documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdeeya horena waa u sii jira, haddana waa siinaynaa. laakiin in agenda oo midnimadeena dhaasi hadda dhaawacantay si dhammaystiraayo whatever uu yahay, ama dhaqaalaha kusoo gabado ama developmenta loogu soo gabadee waa diidaynaa. mana qarinayna inaan diidanahay. walaalaha ayagana waa u sheegnay annaga gooni-sutaaga ma ogolin.
Somaliland dad Soomaaliyeed waaye siyaasadda aan kula dhaqmayna waxay ahayd siyaasad aan colaad lahayn dagaal lahayn faragelin iyo kala qaybin iyo kala wixii faquuqid aan lahayn oo aan rabnay in lagu leeshiyo laakiin xilli aad u adag ay hadda ku jiraan oo ayaga la sidooda ayaa doorashadii iyo wixii iyo wadda aan soo marnay bariyihii hadda u dambeeyay ayagana hadda ay marayaan insha Allah way ka imaan doonaan si nabad ah diyaaran u nahay inaan wada hadalka meesha ka bilaabno laakiin marka intiiba waa kala shaqeynay marka walaalayn reer Somaliland annaga waxaa naga go'naa inaanan hadda aanan diplomatic masalka dowladda Soomaaliya ay leedahay legitimate ka inaanan ku barashar garayn laakiin there are limits wax kasta oo gooni isu taaga promote garaynayo waa kasoo horjeednaa wixii ka soo hara development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan u soo dhaweynaynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdeeya horena waa usii jira haddana waa siinaynaa laakiin any agenda oo midnimadeena dhaasi hadda dhaawacantay si dhammaystiraayo whatever uu yahay ama dhaqaalaha ku soo gabado ama development loogu soo gabadee waa diideynaa mana qarinayna inaan diidanahay walaalaha ayagana waa u sheegnay annaga gooni isu taaga ma ogolin